si aad guul u gaarsiiso naftaada waxaad ogaataa wax walba oo noloshaada ku dhacaya in aad mas'uul ka tahay qof kastana isaga ayaa mas'uul ka ah waxa noloshiisa ku dhacaya haddii aad rabto in noloshaadu qurux badnaato iyo haddii aad rabto inaad nolosha meel liidata ku sugnaato kulliba adiga ayaa hoggaankeeda haddaba walaal waxaan kula wadaagayaa 4 qodob oo dhexaad u ah nolosha inaad hayaanka aad leedahay aad ka guul gaarto 4 qodob waxa ay noqonayaan wax weeye 1 inaan nolosha aynu baranno aynu fahanno waxa dhabta ah ee nolosha aynu ka rabno 2 inuu la nimaano isbedel dhab ah oo nolosha aynu ka leenahay 3 inaan la nimaano qorshe ay nolosha aynu ku hagayno haddaan ku noqdo qodobka ugu horeeya oo ah waxa aynu nolosha ka rabno inaad garato oo fahanto waxa dhabta ah nolosha ka rabto inaad isweydiiso maxaa rabtaa inaad xaqiijiso inaad gaarto taas waxay muhiim kugu tahay in aanad ka caajisin ilaa hadafkaas aad xaqiijiso oo aad gaarto qodobka labaad waxa uu noqonayaa waxa weeye isbedel waxaan ognahay in horumarku sidiisaba uusan macquul ahayn in la gaaro ilaa uu qofku la yimaado isbedel dhab ah isbedel markaan leenahay macnaheedu waxa weeye inaad bedesho xaaladan aan ku qanacsanayn inaad waxa weeyaan u bedesho xaalad aad ku qanacsan tahay marka waa inaad ka guurtaa xaaladda aad ku sugan tahay aad ku qanacsanayn oo isbedel la timaado oo u guurtaa xaaladda dhabta ah aad ku qanacsan tahay isbedelku waa waxa kaliya ku horseedi kara horumarka nolosha aad ka rabto qodobka ku xiga waxa weeye qorshe inaad la timaado qorshe ah meesha u socotid waqtigaad gaaraysid sida ku filin lahayd marka noloshuna qorshe kama maarmato inaad qorsheyso dhammaan ahdaaftaada oo dhan waxay kaa saacidaysaa waxa weeye inay ku nidaamsan yihiin aad tahay qof nidaamsan oo mar walbaba ku helan sida uu gaari lahaa xaqiijinta hadafkiisa waqtigiisana kaga lumin waxyaalo qodobka ugu dambeeya waxa weeye walaal inaad mar walba ku dadaasho cibaadada Allah subhanahu wa ta'ala oo marna aad mugaan qasho cibaadada Ilaahay subhanahu wa ta'ala mar walba oo aad Ilaahay wax weeyaan u dhowdahay waa mar walba aad guusha adduun iyo aakhiraba aad u dhowdahay aad bayna islaamay walaalayaal assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh